Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa sidii loo sheegay waqtigii ugu fiicnaa ra'iisul wasaaraha markii shaqada uu bilaabay waxaan fursad u helay in aan iswareysano waxaan dhahay maxay tahay shaqada aad rabtid inaad gashid intee wax ka bilaabi doontaa marka wuxuu yiri Ilhaan wadanka waxba lama qaban karo haddii aanan dagaal la gelin dadkan wadanka kansarka ku noqday aan meel liska marin marka waxaan ku dhahay ra'iisul wasaare shaqadaas shaqo adag ay u eg tahay waa ku soo duceynaa ilaahay idin fududeeyo bal waa arkeena meel wax ay idin maraan hadda isma dhahaynin waqti aad u yar markii aan isla hadalnay iyo markii aan Soomaaliya imid in guul weyn uu ku gaarayo asiga iyo dawladda Soomaaliya waan uga mahad celinayaa waana u hambalyeynaayaa shaqada badan ay qabteen dhulal badan jiro hadda anagoo dhan aan rabno in aan marno aniga Baydhabo iyo Bardaalana waan ku soo koray meel badan aan ku leeyahay Soomaaliya waan jeclaan lahaa inaan tago marka waxaan filayaa hadda anagoo dhan dadkeenan badana joogo xildhibaanada qaarkood meelaha ay matalaan inaynan fursad badan u helin inay ku tagaan qaar ay rajeynayaan qaar maanta ay ugu horeyso sidii dawladda ay uga soo qayb galeen dadkii ay mataleen inay waqti la qaataan taasna waxaa suurtagelisay shaqada tirada badan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay u horkaceen oo idinkana aad ku taageerteen marka mar labaad waa idin hambalyeynaya isku sacbiyahana loo sacbiyo